Hello السلام everyone, عليكم this is ورحمة Sandra الله Solomon here. وبركاته. We're in Calgary with my ولا friend الإيود Jesse. سكرينتان I'm gonna be كسبب doing a series كنا تسأل how قاعدة to إني spy أدين يدو on Muslims. لما تهي And ولا I لها encourage مسلمين everyone كأهو to do what we are doing. وحال Wear أرك the جمعيه burqa لصوت في and go أيام inside the متكوية women's section, لمدينة إيدلك and so السعودية you can take عربية a video. You إمام can take كمسجد كاس أولغم وعابو photos. إمام أحمد You can do أيا سيدو مسجد wear whatever we're ودعجي wearing and make سيدو sure you مسجد cover your face ودعجي like this. وقرآن كواخرين Okay, أيو ماشي and you can take هردودي a camera sida inside. uu u jiifay I ayuu markuu personally, as an indhaha kala qaaday ex-Muslim, arkay I do not qof trust Muslim. hortaagan Whatever they say, it's a lie. And we need markaasuu to intuu expose isku Islam, naxay and we need to imaamka do whatever it takes. ayaa And I qofkii encourage every guy, hortaagnaa Jesse yidhi is a brave guy, nebi to do moxamed this baa today. nahay We're calayhi going to be salaatu doing wasalaam so many as well in the ummadayda future. ayaan u And I encourage naxsanahay every guy as well to nebiga do the wuxuu same yidhi thing that sala Jesse is allahu doing. calayhi And wasalam we're going to see you shortly. We're going to enter a masjid here hal isbuuc gudaheed in ayay Alberta. 7,000 I kun don't oo want to qof expose the name of the masjid or the ayay address 7,000 because we're kun going to be oo doing so ummadayda many ah of them. geeriyoodeen Keep exposing Islam. 7,000kaasina God bless you all. wax towbad ah oo ay ku geeriyoodeen ma lahan waxayna u badnaayeen dadkaasi geeriyooday Hello sida everyone, tan this is Sandra Solomon here again. lambarka We are doing koowaad another mosque. waa dadka caasi waalideynka ah Me and my friend caasi Jesse. waalideynka hooyadood ku afcelinaya waalidiintood dadka ka waaweyn ku afcelinaya lambarka labaad waa gabadha qaawan oo xijaabka qaadanaynin oo is asturaynin oo timaheeda qaawinaysa lambarka saddexaad waa dumarka raggooda ku afceliya waa dumarka ninkooda ama raggooda ku afcelinaya oo caynaya lambarka afaraad waa dadka maalqabeennada ah oo masaakiinta wax aanan siinaynin wuxuu ilaahay siiyey ku filnaaday aanan wax dadku wax ka siinaynin lambarka shanaad waa dadka aan sakada bixinaynin lambarka lixaad waa dadka taariku salaadka ah subxaana allah dadka taariku salaadka ah waaye lambarka lixaad lambarka toddobaad dadka aanan soomin bisha barakaysan ee ramadaanka sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu imaamkii ku yidhi haddii aad hal xidig cirka ku aragtaan saacadda ayaa dhammaatay kitaabadana way tilmaamayaan marka walaalahayga muslimiinta ahow iyo walaashayda muslimadda ahayd imaamka wuxuu yidhi qof kasta oo hela fariintan waa inuu gaarsiiyaa qofka ugu dhow adigana 3 maalin gudahood buu ilaahay